Netherlands iyo Belgium sagaaliyo toban dowlad ka yimaadeen waa labayntii waddanka intaani kala garanaya marka waxaan leeyahay wixii kala ah la soo jeediyo inaad halkaas loo karayso oo mataqaana wixii aad kusoo guri karto dalka ka qabato lahayaha qablobadiin horaa loo sheegay ku dari maayo marka waxaan ku leeyahay soo dhawow welcome aan ka yimid magaalada Tibro oo runtii ka tahay fuduudka badan Soomaaliya marka waxaan ku leeyahay soo dhawow aada u mahadsan tahay jecel maadaama dhowr dadka ragga ay wada hadleen ay badanaa halkaan rag ku qoran yihiin gabdhaha dhan way isku tageen maxay dhaheen inta raggu hadashay qof u dhiganta ayaan soo dirsanayna markii keligiina aa wadan doonto mamruuqii soo dhow saxan ku dhacayko meeshaan isugu nimaadna anagoo kusoo dhaweynay warka waa badan yahay ma raba inaan anigana aan afduubto runtii inta loo baahan yahay dadkii walaalihii ugu horreeyaan la qabaa midii oo waxaan gooni uga ammaanahay arrintii oo aniga khaasatan goonigii taabatay oo tii Ukraina oo runtii wiil yar oo hadda kusoo jabay oo faamili ah aan hadda Holland noo soo galay kolay taas waxaan u maleeyahay gunta doonto waana mudanahay waana qasab ma aha baryo Holland waxa waaye waddankaas ayay deganaayeen dhib hadduu dhacayna ma aha baryo marka waa qasab ay nagu qaabili doonaan waaye xaqayna waaye kamana aamusi doono insha allah aniga marka baahiyii waxaan la qabaa dadkii sheegay laakiin shakhsiyan waa tegay aniga janaayo waa is aragnay maxaa dhihi jiray ii sheegay baashitoorka runtiina aniga in badan aan ku noqnoqdaa oo howlo aniga taas iyo howlo dad aniga aan macnaha aan ka wakiil ahay oo iyagana dhibaatooyin ka haysta ayaan dhowr jeer u tegay intii hore iyo hadda intuu yimid balse wanaag indhahaygaan ku arkay isaga iyo shaqaalihiisa say hawsha u wadaan isula shaqeeyaan sidaa daraadeed hadda ammaan maayan wax dhalilo kuma hayo aadan ku annagana dhinacayna inaan ka dadaalno Soomaali haddaan nahay runtaa hadii la yidhaahdo kuma fiicnin balanka mar kastana xafiiska farta ku fiirnaa laakiin annaga nafteena balanka kuma fiicnin aan xajino tiibiriga ka sababa 8 saac inta waa fadhiyaan weligay ma barta Soomaalida marka anoo og inaan laga qaalaynin waa warkii khayre anigoo og inaan laga qaalaynin haddana waa indhaha walaalayaal waqtiga ku dadaala assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh أنا مصطفى خطبة iyo hadalkaaga xigmada lahaa iyo in balanta la ilaaliyo waa ku mahadsan tahay sidoo kale waxaan ku yeerayaa أنا سفير على خير إن أول شيء وحول إن أنا أول حديث عن الحين وصل على يشهد الأسرار الصحيح يا محمد جابر مدحوينه كورمان كوسو أيوة نكيا كان عندنا بدنا هي واحد ساعد عسكر الصحيح وهي بنتي لها فكر كورمان كوسو جديد محمد وقتها أنا مدحوينها أخي ما مقبع أنا مدحويني أنا أخي ما مقبع أنا فكر فايك على سلام وحي وافدي سلام عليكم خاصة سفير عصر أمازون يونس وحبينا لنا يسرنا طبعا وانا شيء مثل شيء بس عجبنا هاي خصوصية على النور من خصوصياتي حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونشر كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. أمازون يونس كل غير محمد جالية الصومالية راعي هاي مركا وحال ودعينا إل ومسؤولين الوصى عليك أنا أتخصص أحد إن شاء الله إلى هذه الكركة الغرب مرة مرصد حسوده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمال هذا شرفنا المسؤول
جالية دولة كل يوم السلامة وحان آدي السلامة يا سفير يونس وحاكم علينا السفير لوقف في حق عيون إنه ما إمام دور مرجع وحكم علينا أنا وأنا آدي سفارة دولة أو تحتان إذن سولوينا أنت كأرك مرماها ورماها وطبع صبور لو سوديها باسبور أو ما أقدر بلش بريد الأعلى نويت نفسي أفهمت وحو توقف يعني هل سولوينا مكافأة السنايو مالنا أكمل كور لو سودت لو سودت جوجي أكيد في ساعة ما خلاص سوبيو وحياها أو هذا سوء سوينا هل بعد تقول سري أجي على مشتور كانوا مهتمين أنتوا ناقة أنتوا ناقة بدورة بحيلا يقولوا لا إنه لا يجرب أنت أسكبر يونس هذا هو السبب على إيشيس واحد سوري سلام سومالي هلا سومالي تاسا إسكتي سلاي أبكينا تداري تاجر ولينا وعليكم السلام يا صلاة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان برطمان أنت أيسرت جاي من السوق الكلو عفدي لو خطين سفير كان غالي مستر يونس رنانتي محمد لاي دليل لكن مدام أنا كسو شقي حل السوق أمام وحان أركا سفارة وقتي علاس عن آدي ويرين أيوه خطين كهريا شغال وطلع جاي تبرر كنا يقطع يمكن يقطع ما نسوا أنت تلفون ممكن جواب وقفوا لي وتجارب وجعلها كيلو خلعين مركا وحنليه كم ما معهن يسوون شغلي سامع كبير هدي له كرو إن سفارة تذكر الشيء له وهو تذكر تجاي معامش نجم تجاي رمضانها كله وإن دقات يستعمل أو الله ولا شيء ومن يقول مركو تغيير ميرا ما كريه وحي يقول عليه سماه مركو ما سنتي سفير وصول ويننا ويا قلب رسالة روح يقول سبايا ونحوي ما تا أنا قاعد مكلاي وبرزدتي بدل ساسيا فديو وعن لا إله سبيل الله كاجنا هذا وليس بدنا تعيسى قول شغل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا مشي بركي يقول بيسي وحن كاجي مالي جالي تسوي ده عن طوارئ مثل ما استحق سبيل سولو صراحة أنا هذا وقت عليه لكن كنت صراحة ضد حاجة أنا كنت كعادة كنت بشيء أنا سفارة واتي استحملتني ولي ذكر أنا لكن أنا هاي ضد أهاي ضد كان موجود هو باهم أقونسي يباسبور كل تنشنا الإنسان أنا أقول هذا عايز تنشنا الإنسان لكن أقول هذا ما أنت أكيد هاي سومالي باهم كنت صراحة وأباهم أقونسي يباسبور صوت أسفار كده بشكل sometimes أقول بشكل إذا أقونس يتلفون الخطأ ما له لها يصير وتلفون عن مركب باتي وعندك أقول فيه مشى أو برمن أو شرطي أو برمن ما كتبت باهن أو الباقي الثاني وبيحكي معنا مش يذكر مسؤول بيجي يعرف صراحة لا أحد يكلم صراحة وقبل ما أفهم مشى في الواقع بعدين وقبل ما نقول أقول سبحانه وحاجة هي سومالي ما أسرع عليه أوكي سومالي سبحانه عليه سفارة جوتها تقول تسيوا أقونسي كده وتوصل الكلام وشوف الكلام وحبوا في سفارة ممكن تاني ممكن في ما كان حبيبي ممكن بس حاجة راح يسوي شغال المرة اللي كنت سمعت كده بشيء وأنا كمان
marka labaad waxaa rabaa albaabka calanka saaran laga bedelo calan la yaqaano oo rasmi ah noo saara safaaradda dhaqanka markaa laga bedelo waxaan guda gelaynaa khudbadaha iyo khudbada safiirka oo usoo noqonaynaa waxaan kusoo dhaweynaynaa fanaaniinta Asehan, asehan, asehan.
barnaamijyo badan oo aan imid oo waxaa jira dadka la aamusiinaya aamusa barbarista laakiin marka labaad ee u mahadcelinaya oo urada ku jira horan aad baan ugu mahadcelinayaa reer horan anigu waa lagu xisaaba cali gacanta baadil horan uu ka mid yahay waa lagu xisaabaa safiirka soomaali waa laga shaqeynaya waad ka dhalatay soomaali dhibaato badan baa la kulmaysaa waxyaabo badan baa la kulmaysaa waxaasoo dhan inaad dulqaadato aad loo qalafsan nin dabeecadiisu qalabsan tahay nin dabeecad fiican marka waxaasoo dhan inaad dulqaadato kolley dulqaad kalena waad leedahay waana uma baahan wixii waana ahaa iyo wixii khudbad ahaa hadalan ku jeediyey waxaan u jeesanaynaa dhinac jacaylka anigu waxaan aad u jeclahay gobolka gobolka yimid beledweyne hiiraan marka waxaan jeclaan lahaa inaad beledweyne waa santaraalka soomaaliya sida u turki oo kale inaad ila xustaan waxaa i xoogay nin waddeero la yidhaahdo farshaxan dhinaca farshaxan waddeere laba eray ayaa ku fasaxayna sababtoo asaarka ah saar la yidhaahdo waddeere mee soo soco أطير وأتي كلمتين حطينا نستقل كما يومين فتشبت العدو اسكتي سلام dhammaantiin waa idin salaamay galab wanaagsan habeen wanaagsan ilaahay ku barya dalkeena inuu ilaahay noo hagaajiyo ilaahay jacaylka aan jirayno midnana allah ka hagaajiyo soomaali isjecla iska dhignaa laakiin hoostaas waxaa waaye carabtu waxay tiraahdaa hada bilbana walmilduwa iyo calamada banaanku way ka dhalaalayaan laakiin hoosta waa ku sugan marka ilaahay waxaan ka baryaa sidaan isugu imaanayno oon hadda dad walaala u leenahay in laabteeduna ay isu furan tahay waa qoyntiga koobaad qoyntiga labaad waxaa waaye soomaalida waxaa yidhahdaa waa dad firfircoon oo aad isu jecel waana run waa wadanka ummadda keliya ee dowlad la-aan noolaan karta caalamka dhan isku raaca soddon sano burbur ah horumaray sameeyuhaya laakiin waxaasoo dhan waxaa kasii wanaagsan inaad ahaato dad is jecel oo walaalo ah oo is og oo isu naxariisto laakiin
amaamaad carabiga soo qaatay oo macnaha aan noqono maaragtay dad banaanka ka dhalaalaya kunoosaskan wadankeena kama baxayo waxaan soo dhaweynaynaa safiirka raalli ahaada aniga wadheer artiistaan nahay macallin farshaxan marka waxaa wixii jaaliyadda soomaalida igaga baahan tahay aan jireen yaa marka waxaa waaye ilaahay nabad yeelo annagoo dhan ilaahay nabad yeelo ramadaan soo socdo walaalka afuriga waa meelay noo tahay ogaana waxaa la isku dardaro jaaliyadda action ha lagu tababaro ummadda soomaaliyeed oo dhibaataysan abaaraha iyo soonka dartiis aan tarna dadkeena intaasaan idinku waanaasan ilaahay waa maalintii kulli soomaalinadeedii iyo bidhaashadeedii mudada ciyaartee balad weyn ku taale biyo lulata guudko bartankeeda maahay يقول ما ذا يجوز ترتكب البلاد من سلالة مكة سيقول هاي أنا مسيحيين هذا الجريد هو المسؤول سيدوك الجريد كل جماعة سيدوك روما الحماية وحاكم من عندنا لما صومالون والبيجوتو هم يعني هبينا أن حكم وإنها رضان في الأمم لكن حديث الله في هنا قدر في الصومالي وحنا مع السفير الكلايو ما دام عوضك الدول وضلك الدول عن كردين وعن كتبين عامتنا دينين ممكن تسكسوا بالعليتا عاملا يعني ومرة لبعض أما مرة لحق مدحة أو صوماليا مدحة كل ما يوم سفير كبير مفردية صوماليا مرشاو نكسن أيضا مانتو سودوين أنا مانتو سودوين marka waxaan rabaa inaan wixii laga hadlaa laga hadlay safiirka rabaa inaan hal arko waan ka soo bartay tarsan intaana kulmay maalmihii intaan soo bixin xataa ka shaqeeyo oo madax ka ah oo ka hooseeya madaxda safiirka waxaa ka hooseeyo marka
taas waxaan ku bartay ama aan ka soo arkay markuu qolkiisa gaarka fadhiya ofiskiisa markii qolka meeting qolka oo waiting dadka fadhiistaan uu soo baxayaa after 5 minutes 10 minutes wayna xuleeyaa ay fadhiyo intaas ma ka cararayaa qof Soomaaliyeed inuu ku yimaado waqti meesha uu loo soo gudbin waayo marka waxaa jira markuu qolkiisa xafiiska u fadhiyo oo fadhiyo inuu qolka waiting dadka ay fadhiisanayaan oo soo imeeyo oo dadka baahiyaha caawiyo intaas oo kala dardaarmaya ilaahay inshallah la gargaro Soomaalida waxaa laga isku caawiya safaarad qabanayso baandoor ugu dhageystay waxa lagu dhigay halkan ay dadka Soomaaliyeed ka soo jeediyeen ee hadalla ah marka jawaabihii iyo weliba waxa uu noo wado si wanaagsan aan u dhageysano waa wanaagsan بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما هذه أمان أو إلى عليه وعقول الحياة وأنا كان والله على الأيام جانيتي سوق الساعتين oo Epson iyo jaariyadihii ka qayb ka ahaa oo ay one umbrella isugu yihiin mahad gaar u jeedinaya inay munaasabada tanqaadka u qornado inay isku soo dhoweeyeen oo keliya ay ku soo dhoweeyeen safiirkooda mahadda kadib kulankeena maanta wuxuu ka tarjumayaa biseelka aan noqonay ee siyaasadeed iyo muslimaantii intaba Soomaali waxay soo martay ilaah baa og kala fadhiisanaan waxaan dan ugu jiray taas waqti ilaa 30 sano iyo ka badan kaga lumay laakiin maanta sidaa maaha way ahaan jiray ilaahay waa naga sii dulqaadaya inta badan ilaahay waa naga dulqaadaya haddaan usoo noqdo jaaliyadiina reer Holland goobtii Holland waxaa lagu tiriyaa jaaliyadaha ugu firfircoon xagga waxbarashada oo ah dadka jooga Soomaaliya oo inta badan ka yimi Holland haba tegeen Yurub oo dhan oo kala qabsan asalkooda markaan aragnay reer Holland taas idinla cusub bay u tigelisay taa waxaa kaloo dheer inaad Soomaaliya ku leedihiin umbrella idin midaysan oo aad ku midaysan tihiin oo tasiilaadkii safaaradiina oo xagga ku taala kaga baahan tihiin idinkiisa oo la yidhaahdo maaragtay guriga Orange haddaan qadayn marka midda kaloo dheer waxaa weeye عدالتين وحكمنا أو عن ينكفر دون مستقبلك مجالويك مقدشو وطبعاً وهذا وكونجستد حاجة ترافيك لين كان البسكيلة برتين طبعاً وأنا قلت تعالى إلى هاي اليوم مرة نسوي موضوع أنا يقول صفحة أنا si kooban loo kaco waxaan ahay safiirkii tobnaad ee Soomaaliya ku soo dirsatay boqortooyooyinka Belgium, Netherlands iyo Luxembourg oo la isku yidhaahdo Benelux iyo European Union tan safaaradda idinkaa runtii reer Holland iga badiya waayo safaaradda idinka had iyo jeer ku istaagi jiray garab siin jiray agabka yaal qayb ka mid ah reer Holland baa loo aaminaya safiirkii hore saa u soo dhaweysay iyo wuxuu wanaag idinkala kulmay walow intooda badan aan rafnin laakiin taa iyadu waa jirtaa midda xigta safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay boqortooyada Belgium
toddobaatanii markaanu ahayn wargarakadan dal oo aada maaragtay u hanweynaa adduunka markaa ka horreeyay Afrika inteeda hore gurigii residensiga iyo safaaradda intaba burburdoode qof waliba meel ka dhaca safaaraddii iyo gurigana dadkaas ay la dhintoo kale iyaga wax usoo gurmada ma leh waa tanawi muslimiin maaragtay inay ducabtu qoomi bayna wanahaar musiifiinkii hore waa sameeyey wax ka aqaadan male midka xigo aniga aan ahay hadda kii tobnaad waxaan ugu imi dhaxal uguma imi waxaan ugu imi waxaan anigu sameyn oo bilow ah laakiin la socda aniga waxaan sitaa calanka Soomaaliya taasaan ugu dhalisay inaan go-aan gaar qaato oo meeshaas sharafteeda iyo waxaan la qaban karo keeno waana insha Allah waan rabnaa adigu safaaradda waa ka adkaanay oo hadda safaarad ay ku yeerayaan mar safaaradda iyada isku filan iyo dowladda oo hadda rabta inay caawiso laakiin gurigii residensiga ahaa oo aan lahayn oo 1 acre ah oo dhul aan la heli karin ah baa qof waliba oo municipality-ga dhulka ku yaala ku dhigay way leeyihiin waxaa jira ceebta safiirka keliya kuma dhexayso qof walba Soomaaliya adeegaan waa walaalahaas marka insha Allah taas waa hadda noogu daran idinkala mid ahay taas waxaan ka yeelnaa gudoomiye waa ogyahay cali waare nin waliba tiisa mashquulisay marka insha Allah usoo noqonayna safaaradda waa hanaanka dowladnimo ee aanu haysano u dhexaysano iyo la socda Soomaaliya waxyar haddaan idinku celiyo dowladda Soomaaliya taagan hadda waxay ahmiyad siinaysaa oo gaar waa sovereignty-ga territorial integrity-ga political independence intaa wax ka baxsan oo maaragtay oo qof territorial ku ciyaaraya ama sovereignty-ga ama haybadeena ku ciyaaraya dadkaas oo dhan warkaas waa joojinay hadda waa soo miirsanay waxaan dhicib saqiibka anagaa raacsan kara anagaa heli kara waa badannahay ilaahay waa human capital iyana waxaa ka soo gaaray xilligii marka taasna waxay tusida Soomaaliya